بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo talaabooyin fudfudud oo ku sahlaya sidaad ku bilaabi lahayd ganacsi cusub ma rabo inaan tafaasiil dheer aan galo si toos ah waxaan bilaabayaa talaabooyinkaas talaabada koowaad la imow fikrad ganacsi oo wanaagsan dooro fikrad ku salaysan baahida suuqa ka jirta ama xirfad aad ku fiican tahay labo daraasad ku samee suuqa fikradda aad rabto inaad suuqaad ku soo gasho ma tahay fikrad ay macaamiisha soo dhaweynayaan fikraddaas ha ahaato badeeco aad iibinayso ama adeeg aad qabanayso saddex qorshay ganacsigaaga samayso qorshe ganacsi sida inaad samaysato miisaaniyad inaad leedahay istiraatiijiyad suuqgeyn ah iyo inay ku caddaato ujeeddada aad ganacsigaas ka leedahay afar maalgelin waxaa muhiim ah inaad hesho lacag aad ku bilowdo ganacsigaaga ha ahaato lacagtaas lacag aad adiga iska leedahay ama lacag ay qoyskaaga kugu deeqeen si ay kuugu taageeraan ganacsigaaga ama inaad shirkad heshiis aad la gasho kadibna aad lacag ka soo deynsato kadibna aad lacagtaasi kiskisaas iga guto shan samayso sumad ama logo brand ganacsigaaga u sameey magac astaan iyo aqoonsi oo ka tarjumaya ganacsigaaga wuxuu yahay lix sharciyeenta diiwaangeli ganacsigaaga oo samayso rukhsad shaqo toddobo bilow yar ganacsigaaga ku bilow si tartiib ah adigoo tijaabinaya badeeco ama alaab ama adeeg si aad u ogaato waxa ku habboon macaamiisha aad beegsanayso siddeed suuqgeyn iyo xayeysiin adeegso warbaahinta bulshada saaxiibada iyo shabakadaha internetka si aad ganacsigaaga u faafiso sagaal kordhi tayada alaabtaada waqti la qaado macaamiisha sababtoo xiriirka wanaagsan ee macaamiisha wuxuu qayb weyn ka qaataa horumarka ganacsigaaga waxaad weydiisaa badeecooyinka aad ka gadayso ama adeegaad u qabanayso haddii ay ku qanacsan yihiin sidoo kale haddii ay ka qabaan wax dhaliil ah waxaadna si gaaraad u fiirisaa ra'yiga ay ku siiyaan isku day ra'yigooda inaad qaadato una hagaaji alaabtaada badeecadaada ama adeegaaga sida ayagu rabaan toban dulqaad iyo joogteen u diyaargarow caqabadaha ku soo wajaha sababtoo ah ganacsi walba cusub wuxuu la kulmaa caqabado iyo dhibaatooyin waxaadna mar waliba sii wadaa horumarinta ganacsigaaga midna ku darso markaad rabto inaad ganacsi aad bilowdo ha ku fikrin maalin ama 2 maalin ama bil ama sanad inuu ganacsigaaga ku guulaysto waxaa laga yaabaa inay kugu qaado sanado badan keliya adiga joogtay dadaalka iskuna day inaad macaamiisha aad si wanaagsan u soo dhawaysato isku day alaabtaada inay lahaato tayo aad u fiican insha allahu tacaala ganacsigaaga waad ku guulaysan doontaa السلام عليكم